بسم الله mahadsanid mudane gudoomiye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiga dadaalka faraha badan wada doodaydii qodobada maanta laga doodayo waa laga bilaabo qodobka 10aad ilaa 20aad qodobka 11aad fakradiisa koowaad oo sinaanta muwaadiniinta oo dhan iyadoo aan loo eegaynin lab iyo dhadig diin xaalad bulsho ama dhaqaale ujeedadayda waxaan rabaa in meesha iyada ah maadaama muwaadiniinta Soomaaliyeed ay meesha la yiri muwaadin la yiri dabcan waa muwaadiniinteennii Soomaaliyeed marka ma jiri karo ereyga diinta ah in meesha lagu soo daro maxaa yeelay in la isku faquuqo diin iyo sheekadaas markii la keeno macnaheedu waxa waaye muwaadiniin aan muslim ahayn ay jiri karo waay ani marka waxay ila tahay in ereyga diinta ah meesha laga saaro Soomaali waa isku diin isku dhaqan isku af waa tii aan hore u akhrin jirnay laba jeer ayuu soo noqday meeshaas qodobka 11aad tii horena sidaas ay ku qorneed idinkan isla tiyaad soo celiseen midda kale fakrada labaad isla qodobkaas koowaad waxaa reeban in qofna lagu sameeyo waxaa reeban in qofna lagu sameeyo si toos ah ama dadban takoor ereyga takoorka la yiraahdo fasiraad badan u baahan yahay ma ii sheeg adiga qofka qaabkee loo takoori karaa ma qabiil ahaan ma deegaan ahaan ma af luqad maxaa lagu takoori karaa takoorka laftiisa ama curyaannimo takoorkaas laftiisii hoogaa yar in la qeexo oo la faahfaahiyo way ficnaan lahayd waxaan rabaa isla qodobka labaad fakradiisa afraad waxaad moodaa in lagu soo kordhiyey fakrad kale saddex fakradood midda afraad yaan rabaa inaan ka hadlo awal saddex fakradood buu ka koobnaa hadda waxaa lagu soo daray afar aan dhehe mid dheeraad ahaa lagu soo daray middaas dheeraadka oo u qoran qofna maqaam iyo maamuus uu leeyahay awgeed ugama baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab faldembiyeedka uu galay waxay ila tahay maadaama awal uusan ku jirin in wax badanoo mugdi ah uu keeni karo xasaanadii iyo maxay aheeto dad badan oo mas-uuliyiina meeshaasi culays uga imaan karo ani marka waxay ila tahay qodobkaas sidiisaba aad uma aanan fahmin mugdi fara badan ayaa waxyaabo fara badan ayaan ku duugan